dufcaddii sagaalaad ee dhammaysatay heerka koowaad ee waxbarashada ee jaamacadda horseed ee bachelor degree ayaa xaflad sagootina oo ay kasoo qaybgaleen qaar ka mid a ardayda macalimiinta iyo maamulka jaamacadda waxa ay ku qabsadeen magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka soomaaliya. xafladan ujeedkeedu uu ahaa macsalamaynta maamulka iyo macalimiinta ayaa ah xaflad ay soo qabanqaabiyeen guddi ka tirsan dufcaddan sagaalaad ee ka qalinjibisay jaamacadda horseed gaar ahaan kuliyadda public administration, waxaana xafladan ay ka mid tahay kuwa isdaba joog ah oo ardaydan ay u sameynayeen macalimiintooda. qaar ka mid ah macalimiinta jaamacadda horseed oo xafladan lagu casumay ayaa goobta ka hadlay, waxaana ay la dardaarmeen ardayda u dabaaldegaysa farxadda qalajibintooda. qaarkood waxay ammaan ballaaran ay usoo jeediyeen dufcaddan oo ay ku tilmaameen inay yihiin arday ka tilmaaman kuwa kale ee jaamacadda, waxaana khudbadaha ay macalimiinta jeedinayeen lagu xusayey in ardaydan ay akhlaaqdoodu ay ahayd mid wanaagsan. cad weyn oo ah in maanta aan idinka soo qayb galno xafladii labaad. mar ayuu hadlayay dhanka kuliyadda wuxuu yiri ilaa iyo 6 camal ayuu tilmaamay. marka anaga 6 baan ogeynaa asiga inta kala qarsaday halkaan ay mid kan siis dhamaysay shahaadada bachelorka ku guuleysatay waqti badan iyo mataqaanaa dadaal badan iyo wax badan oo 3 sano oo qofkii uu tacliin ku jiro. tacliintana ninkii soo maray baa yaqaanay waa dhib badan tahay, way iska wareer badan tahay. haddana laakiin qofka markuu wax barto oo cilmi yeesho markaasuu garan karaa waxa uu cilmiga yahay. alxamdulillah sacmaan alxamdulillah ilaahay kumaad sababtoo nin baa kula soo halgamay, gabar baa kula soo halgatay, maanta fursad uma helin inay qalinjibiso. tii rabbi inay ku dhacdo dhimatay iyo inay dhooftay iyo inay gurigiiska joogto, adigu sida nasiib ayaa u hesha maanta inaad qalinjibisid. ilaahay ku mahdi marka subxaanahu watacaala. intaa marka xaggaa uga baxo, waxaan rabaa marka ugu horeyso ardaydan public administration ee dufcadda sagaalaad ee jaamacadda horseed, runtii waxaan dhihi karaa waxay ahay arday isku duuban, arday karti badan, arday dadaal badan, arday sharaf leh. abshir oo ka mid ah ardayda qalinjibisay kana tirsanaa guddiga xafladan soo qabanqaabiyey ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay inuu ka mid noqdo ardaydan public administration ka qalinjibisay, waxaana uu xusay in ay sii wadi doonaan waxbarashadooda. nimcada ilaahay subxaanahu watacaala maanta ina siiyey sida doctor nuun uu sheegay ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ka mid ah 3 sano ayaan wax soo baranaynay in aan ka bilaabnay jaamacaddii horseed, aan kusoo dhamaysanay jaamacaddii horseed, haddana aan usii gudubno caafimaadka ilaahayna siiyey, nimcada ilaahayna siiyey sababteeda inaan masterkii usii gudubno iyo inaan PhD intaaba usii gudubno. jaamacadda waa inoo haysaa. qaar ka mid a ardayda oo si gaara ula hadlay telefishinka Som News ayaa ka warramay dareenkooda maanta maadaama heerkii koowaad ee waxbarashadoodu ay ka qalinjibiyeen. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qalinjibino jaamacadda horseed international university, aan qaadano baajkii ugu horeeyay. waxaan rajeynaynaa insha Allah dufcadii ugu fiicneed jaamacadda iyo dufcooyinka lagu dayso. bismillahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ahay arday ka tirsan jaamacadda HIU ama horseed international university, waxaana dufcadii sagaalaad ee public administration ka qalinjibisay. madaxweynaha jaamacadda horseed cabdikariin sheekh maxamed ayaa sheegay in jaamacadda horseed ay fursado badan u hayso ardayda, kuwaas oo ay ka mid yihiin master degree iyo PhD oo ay ka heli doonaan dalka gudihiisa. kalsoontinta ayaa waxay keenaysaa xasuus inay nagu reebto annaga oo aan dhahno markaan fursad aragno yaa ugu horeeya iyo dadkii kartida lahaa oo maxaa la yidhahdaa hooshii adkay jaamacadka markay dukada qabtay, hadda markay qalin jibiyeenna maxaa la sagootiska badan loo sameeyey. tan oo kale waa xasuus reeb, xasuus ay nagu reebaysaa annaga. xafladan ka weyn inaan qabsano ummadda jaamacadda ka qalin jibin doonta ardayda soo socota. ugu dambeyntii ardayda qalinjibiyaasha ayaa waxa ay shahaado sharaf guddoonsiiyeen macalimiinta iyo maamulka jaamacadda horseed maadaama ay muddo ka badan 3 sano ay wada joogeen. axmed xasan ibraahim, Somali News, Muqdisho.